dhibaatooyinkii maalmahan dhacay oo ka soo bilaabanaysay meeshii aan ahayd Pizza House iyo Bosch iyo dhammaan iyo degmada Wadajir iyo shalo kale ay ka dhacday saldhigga booliska ee meesha la yiraahdo Waaberi waxaan la intii dhimatay naxariis jan Allah ka waraabiyo intii dhaawacna Ilaahay ha shaafiyo waxaan umad Soomaaliyeed rabaa inaan u sheego meesha hadda waxay maraysaa in dadka shacabka caadiga ay taargetgareeyaan ee shacabka dhibaato gaarsiiyaan laakiin anagu ka maamul ahaan oo gobolka Banaadir kama yeelayno gumaadka shacabka marnaba kama aqbalayno sababtoo shacabka waa shacabka ayaga madax ku nahay ayaga u adeegna ayaga u qidmeena inay dhacdo qof maanta rajo ah in laga dhigo qof maanta oo agoon in rajo laga dhigo qof rajana in agoon laga dhigo anaga ma qaadanayno maalintu wixii meesha ka dhacay dadka dib loo gaarsiiyay waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Wadajir marka la joogay oo lacag loo siiyay xaqul ciid inta iska soo aruuriyeen $10 oo dadka aan ciidda haysan u aruurinayo oo lacagta isku dardaray oo liiska sameeynayo ayuu nin dhagar qaba inta yimid uu qarxiyay oo qaarkood laba kamid ah ay ku dhinteen marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiidiyo dadkaas geeriyooday laakiin aan u sheego uma istaageyno mana joogsanayno dhibkaas ummadda ay ka hayaan waa ka qaban doona Ilaahay idinkiisa insha Allah taala waxaan si gaar ah inaan sidoo kale ugu tacsiidiyo walaalkay Allah u naxariiso gudoomiyihii sportiga degmada Wadajir walaalkay Catoosh oo ku geeriyooday dhaawac soo gaaray waxaan la Ilaahay naxariis ha ka waraabiyo laakiin dadaalka bilowday iyo kalsoonidii iyo kartidii iyo dhiiranaantii iyo dhallinyarnimadii wax ku qabanaysay waa sii wadeena intaas kuma ekaan ganas insha Allah waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay uga faa'iideysto gaar ahaan dadka Muqdishaawiga ah ciid wanaagsan maadaama ay noo dhiman tahay dhowr maalmood laakiin inaan ciid wanaagsan dhaho anagoo maanta ka hadlayna suuqa Bakaaraha oo hadda jooga masaajidka Daawada agtiisa suuqa si wanaagsan bay dadku u ciideysanayeen dad dhalinyaro oo ciideysanayo dad oo sidoo kale aan ciid qaybaha kala duwan lagu ciideystay ayagana iibsanayay farxad ay noo tahay waxaan leenahay sidoo kale gudoomiyaha ila joogo dhibta aan ku aragno suuqa Bakaaraha gaar ahaan wadooyinka in wadooyinka loo helo in ama one way ay noqdaan hal dhinac mid loo maro ta kalena dhinac kale waa exit iyo entrance in loo helo meel laga soo galo iyo meel laga baxo hadda waxa isdhax yaacay aan ka baxno dadkuna aan u kaalmeeyo kulligeen waxyaabaha aan ka wareys dadka waxa kamid ah minshibiya ma ku dhibtaa dad kale ma ku imaadaan ma lagu dhibaa dadka waxay noo sheegeen inaysan dhib jirin laakiin annagana waxaan ilaalo gooniyan dhigeena kama aqbalayna shacabkeena in la dhibo wixii dhiba shacabkana soo gaarsiiyay annaga dhibkiina waa dhibkeena shacab ogaada annaga idinka adeegna idinka idin khidmadeena Soomaaliya iyo Muqdisho inay nabad noqoto oo maanta Bakaara aan joogno idinka mas'uulka ah waa uga mahadnaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wanaaga ay nala sameeyeen hay'adaha amniga ay la shaqeeyeen ugu dambeyntii waxaan leeyahay ciid wanaagsan sidoo kale sama ku ciida soonka inta ka dhimanna sama ku afura waad maasantii salaam alaykum.